بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركلي برنامج كينا بروجرامين. waxaan halkan alaaba idinkaga soo diyaariyay anigoo ah injineer Cabdiciis Maxamed Xasan. maanta waxaan qaadanaynaa lecture-kii lixaad. waxaan ku guda jirnay insha Allah taala control structure. waxaan soo qaadanay if iyo if else. maanta waxaan qaadanaynaa nested if structure. if dhex jirto if kale. nested if structure waxaa la if condition kale ku dhex jiro. marka waxaan kasoo diyaariyay laba programka ugu horeeyo waxaa nagala rabaa saddex number ayuu userka soo gelinaa. kadib saddexda number oo userka soo geliyay hadday isla mid yihiin oo saddex number oo isku mid ay yihiin waxaa naloo soo bandhiga numberada oo userka soo geliyay dhammaantood waa isku wada mid. haddaysan isku mid noqon waayo laba isku mid noqda mid ka duwanaaday. maadaama uu mid ka duwanaaday waxaa nagala rabaa programka inuu dhaho numberada soo gelisoo dhan isku mid maaha. marka waa bilaabayna insha Allah taala saddexdaas labadan program ka shaqeyn doona insha Allah taala. programka ugu horeeyo waa sidaan sheegnay saddex number ayuu soo gelinaya userka. saddexda number oo userka soo geliyo haddii isku mid yihiin waxaa la rabaa in loo numberada userka soo geliyo waa isku mid. haddii saddexda number oo userka soo geliyo kala duwan yihiin waxaa la rabaa in loo numberada userka soo geliyo waa kala duwan yihiin. okay waan bilaabeynaa. waxaan soo kacsanaynaa applicationka ku isticmaali jirnay header file iyo functionka waan u diyaarsan kaliya waxaan sameynaynaa logic loogu baahan yahay programkan lagu qabto. okay maxaan u baahanahay saddex number inaan declare gareysano oo memory-ga space aan ka qabsano. okay saddex number marka la declare gareeyo number maadaama uu yahay waxaan ku declare gareynaynaa integer. okay integer num1 hadana waxaan leenahay num2 num3 كما حال مرة وضع declare قرينا سدح number num1 num2 num3. okay user كان وحن أمر كسينينا إنه سوق لي مركب print f enter fast number سوق لي number كوجه رأيه /n new لان بحمر كسوق لي. okay scan f percentage d maadaama uu number u yahay abersan variable-ka magaciisa sheegayna variable-ka ugu horeeyo num1 intaan ayaa copy gareysanayna asiga le wax ka bedelayna insha Allah taala. copy paste inta waxaan leenahay second number nooga dhig. intana waxaan leenahay num2 dana waxaan leenahay paste marna soo declare gareey waa ayaga uma baahni yatir. okay inta cadeyna third numberka saddex soo geli third number cadeyna meesha inta waxa ku qorayna number 3 saddex number oo userka uu soo geliyo soma hadda logic qorayna marka. okay if cadeyna numberka koowaad hadduu uu la ekaado numberka labaad conditionka if koowaad waa kan hadduu numberkan koowaad waxaan isticmaalaynaa laba equal waa laba shay markaa rabto inaad isbarbar dhigto inay isku mid yihiin. okay num1 hadduu la ekaado num2 labadan number haddii isla ekaadaan boodiga if furayna conditionka dhex gelinayna marka if aadan dhahayna markay tan sax noqoto hoos u soo gudub ifkan u soo gudub num1 sidoo kale haddii la mid noqoto num3 haddana boodigi baan furaynaa
kadib intaa markay true noqotay kan koowaad true noqday waa soo gudubtay tan labaad true noqotay intaa waxaan leeyahay printf noogu soo bandhig three numbers saddexda number are same waa isku mid numberada soo geli saddexda number waa isku mid haddii shuruudan soo bixisa numberka koowaad hadduu la mid noqdo numberka labaad sax bay noqotay labada number waa isku mid noqdeen haddana isla numberka koowaad hadduu la mid noqdo numberka saddexaad soo gelisay waxay ka dhigan tahay marka saddexda number waa isku mid ee soo dhaca message-kan three numbers are same saddexda number waa isku mid okay waxaa kaloo dhici karto numberka koowaad wuxuu la mid noqon karaa numberka labaad maadaama numberka koowaad la mid noqdo numberka labaad waa true numberka koowaad haddana numberka labaad lama mid noqon marka maxaa noo soo baxaya marka boodigan inta markaan joogno waxaan leeyahay haddii saas dhici weyso else inta ku darsanayna saas ma dhicin soo ma waxaa noo soo daawacdaa way kala duwan yihiin la ku dhiisha koowaad uu kasoo gudbay ku dhiisha labaad uu ka gudbi waayo marka uu ka gudbi waayo maxaa leeyahay three numbers saddexda number are different way kala duwan yihiin maadaama laba number bis isku ekaatay number kale uu ka gudbi waayo waxaan leeyahay condition kan buu kasoo gudbay condition kan uu ka gudbi waayo sidaas darteed waxaan leenahay three numbers are different saddexda number way kala duwan yihiin sidaan aragno okay haddii in case ay noqoto condition koowaad 1 iyo 2 ab isku mid noqon waayeen number 1 iyo number 2 haddii isku mid noqon waayeen maxaan leenahay ayagana inta markii la marayo else baan leenahay if boodiga ifta dhana ka bixina ilaa shardi koowaad uu buuxi waayba else inta waxaan leenahay else printf isoo bandhig three numbers saddexda number three numbers saddexda number waxaan leenahay marka three numbers are different saddexda number waa kala duwan yihiin different saddexda number waa kala duwan yihiin okay execute baan leenahay baan gareynaa markaas waa arkaynaa markaas waa ma save gareyn sorry waan save gareynaynaa marka hore waxaan ku save nested if aan leenahay nested if aan ku save gareynaynaa okay extension waa noo saaran yahay save baan leenahay qalad buu noo soo saaray okay waxaan ka tagnay meeshaan leenka nagala haysto noo sheegay leenka 26aad nagala haysta waxaan ka tagnay expected before semicolon ayaa meel ka soo tagnay waa kan halkaan semicolon ka tagnay markaan ku celinayna meeshaas semicolon leen walba waa inuu lahaada semicolon okay execute run baa dheena waxaana la numberka ugu horeyso geli 10 baa soo geliyay numberka ugu horeeyo second numberka labaad 5 baa geliyay third number maxaa way 12 baa geliyay saddexda number way kala duwan yihiin maxaa rabnaa message ku noo soo bandhigaan loo three numbers are different saddexda number soo gelisay way kala duwan yihiin message noocaas rabnaa in la soo bandhigo waa fiirinayna three numbers saddexda number are different way kala duwan yihiin saddexda number soo gelisay markaan aan ku celinayna waa sax koodka ugu horeeyo shaqeeyay maxaa yeelay saddexda number way kala duwan yihiin laba hadaa isku ekeysino ka saddex ka duwana waa inuu dhaha saddexda number way kala duwan yihiin ayada sidoo kale saas xataa waa inuu dhaha maadaama uu hal shardi ka maqan yahay okay numberka waa 10 ka dhigin numberka labaadna 10 ka dhigin numberka saddexaad bisa ka duwanaa waxaan la rabaa in Allah numberka numberada waa kala duwan sababtoo ah laba number bisa shardiga soo bixi kan kala maqan three numbers are different saddexda number way kala duwan okay labada ugu dambeeysa isku mid ka dhiga halka hore ayaa qalad ka dhiga asiga sidoo kale waxaan la rabaa in Allah numberada waa kala duwan okay numberka ugu horeysa 3 ka dhigay labada kale 5 iyo 5 ka dhigay labada hoose isku mid ah mid koowaad ka duwan mid koowaad maadaama uu ka duwan yahay asigana waxaan rabnaa in Allah saddexda number way kala duwan yihiin okay three numbers are different way kala duwan maxaa shardigaana qaldamay hal shardi hadduu qaldamo waa saddex shuruudan ku xirno waa inay isla hadaan okay kan koowaad iyo kan saddexaad isku mid ka dhigayna labo saddex kan koowaad ku celinaa waxaan rabnaa in Allah three numbers are different saddex number way kala duwan
three numbers are different saddex number way kala duwan saddexdaas isku mid ka dhigana marka shardiga waa buuxisan Allah oo Allah saddex number aa soo gelisay waa isku mid 9 9 9 marka waxaan rabnaa three numbers are same okay shardiga waa ansaxay three numbers are same programku ugu horeeyay waa ansaxinay programku ugu horeeyay inta programku wad intaas ayaa u gudbaynaa waxaan bilaabaynaa programka labaad waxaan kala gudaraa programka wad inta badan conceptiga waxaa loo adeegsadaa marka la sameynayo password and confirmation match password marka oo confirm password marka la rabo password laba password kin laga jeegray soo gali password ka hor marka la ku celi marka lagu dhaho confirm kaas ayaa inta badan loo adeegsadaa conceptiga okay aan gudubno programkana kale programkan kale waxaan naga rabaa inaan soo galino ardayga saddex maado oo dhigto kadib grade kiisa soo bandhigno grade kiisa anagu adeegsanayno if okay grade kiisa hadduu ardaygu grade kiisu ka weynaado 9 ama 9 kala egaado waxaan la rabaa grade A inuu yahay ardayga waa grade A hadduu 9 ka yaraado 80 ama ka weynaado ama 80 oo la egaadana grade B code noocaas shaqada noo qabanay ayagana waa naga rabaa kaasa sameeynayna insha Allah taala hal rabaa in la soo geliyo saddex subject oo qaata ardayga saddexda subjectiga waxa ku sarcaan ku sameeynayna grade ku sameeynayna okay hadda saddex number baan oo diyaarsan inta la ka bedelayna subject 1 subject 2 subject 3 la ka dhiganayna code ka hadda waxay ka bedelaynaa subject 2 subject 3 waqti badan bas kala minana iftaan intaan dhan waa iska tirayna okay inta waxaan ku bedelaynaa subject 1 subject 2 saddex maado soo gal lagu dhawaaqo saddexdooda halkaan baa sidaan u soo gelinayna subject 2 inta iga dhig subject 2 halkaan waxa iga dhigtaa subject 3 okay halkaan waxaan ku bedelaynaa marka qoraalkan ayaan ka tiraynaa halkaan enter soo geli marks of English ka dhigana marks of English ka markiiskiisa soo geli waxaan noo qabanaa isla markii kan okay adana waxa leena marks of math saddex maad enter marks of math na soo geli adana waxa leena enter marks of science saddex maad oo qaata ka soo qabo science okay waxaan haysanaa integer waxaan ku sheegnay saddexda subject saddexda variable ayaa ururinay saddexdu waa integer waxaan kaloo sameynaynaa total variable ka saddexdu waa integer iyo average waa loo baahan yahay float average waa float data type-kiisu oo ka duwan asaga mararka qaar wuxuu noqon karaa bounties inta badan waa naqayaa average waxaan kaloo u baahanaana grade ku waxaan loo qabto jar grade xarafka grade A ama grade B noo soo bandhigay okay waxaan sameynaynaa markaa inta condition gaining core waxaan sameysanaynaa total iyo average total waxa la egta average ka laga sameeyo grade ka soo sidama okay subject 1 lagu diray subject 2 variable noo soo lagu diray subject 3 total intaas la egta okay average na muxuu leeyahay average wuxuu leeyahay total oo loo qaybiyay imise maada waa marka imise maada la soo geliyay saddex loo qayb okay top board dot zero iskaga darsanayna maadaama ay point okay hadda waxaan leenahay marka if average to kima matqana wuxuu ka imaana saddex maada marka la soo geliyo total loo sameeyay totalka saddex loo qaybiyay wixii soo bixi doono ay average la average kaas hadduu uu ka weynaado ama la ekaado 9 hadduu ka weynaado ama la ekaado 9 bracket ka ifr bracket ka waxay ugu qabataa grade alaha grade ka kan grade kaas ayaa inta ku sheegay grade kaas hal mid noqdo single character oo qata grade ka Soomaali A semicolon
kadib waxaa ii soo bandhigtaa print waxaa ii dhahdaa print waxaa ii soo bandhigtaa printf waxaad ii soo bandhigtaa grade laba dhibcood dheh percentage c e dheh kadib maadaama character taas variable kan waa grade grade kana waa grade kana inta ka waa wuxuu sida a oo ku wada okay condition kala maxaa if else igu qabo saas hadii naqawayso hadii saas qeybto else if maxay kala noqon kartaa saas ma naqan waxay noqon kartaa average hadduu average ku ka weynaado ama uu la ekaado muxuu la ekaana wuxuu ka weyn yahay 90 hore oo soo sheegnay soo ma hadduu markaan ka weyn yahay marka ama uu la ekaado 80 hadduu ka weynaado ama uu la ekaado okay grade hala mid noqdo b grade b haygu la mid noqdo intan waxay ugu daawacdaa printf semicolon ka tagin printf grade aan dhahayna laba dhibcood percentage c comma grade okay intaana tijaabinayna fiirinayna soo wax naqanayaan qalad baa jira inta la was not declared printf ma bala aqoonsan meeshaas waxaan ka dhigay b capital printf hadda ma diiday okay English marks qofka wuxuu keenay 9 waxa kormarinayna grade B ama 8 kormar ama 9 labada waa fiirinayna qofka wuxuu keenay 97 hadda grade A aan karabna 98 total kiisi wixiisa dhan waa noo soo bandhig maray laakiin grade kii soo dhan soo bandhiga haduu taa habeenayna waxaan rabnaa inuu grade A noo soo bandhigo grade A waa saxananay okay 80 ka ku aadinayna marka 85 ama 80 wax ku aad amal daan dhahno qofka 80 saddex maado wuxuu haystaa 80 70 grade kiisa waa grade C oo malena hadda wax yar ka fogeynayna grade B amal noo soo daawa 80 sagaalana 88 hadana waa ku grade B okay waa sii wadayna hal mar waxaan soo wada daabacinayna okay else if aanahna else if average ku hadduu ka weynaado ama uu la ekaado 70 waxaan noo soo bandhigtaa shaqada la noo qabo inta la kubiyeyna waa isla conceptigi else if doona qawiysi intaan hadana inta badda wax soo gelina grade B maana grade C intaan noqoto intana haddii ka weynaado goorma ka weynaado 7 waa saxanana inta 60 ka average ka hadduu ka weynaado ama uu la ekaado 60 uu ka weynaado ama 60 hadduu la eego maxaa D okay the last one average ka hadduu ka weynaado muxuu ka weynaaha 60 soma konton ku ka weynaado ama uu la ekaado kontonka maxaa waa e bes inta hadduu noqo waayo marka else inta hadduu noqo waayo qofkan waa file din la printf file waa file uu dhaca intaas konton wixii ka yar waa uu dhaca leena insha Allah okay waan gareynayna marka intaan gareyn kor total kiya soo bandhigayna ya average printf total percentage d comma yano side tot printf
average asigana oo wacayna average percentage d baan dhehnaa may f aan dhehnaa asiga comma maxaan dhehnaa markaas dot my avg average variablekaas ay noogu jiraan. okay haddaanan garaynaynaa waa arkaynaa. okay aan soo gelina marka maadada koowaad qofka wuxuu keenay conton, maadada labaad math wuxuu keenay 80, maadada saddexaad wuxuu keenay science 90, 270 230. okay waxaan kala habeynaa hal mar. inta waxaan leenahay /n, inta waxaan leenahay /n new line, mid walba new line igu bixisaan u aragno mid kastoo nadiif. maadada 90 oo keenay English 90 oo keenay. maadada labaad xisaabta wuxuu keenay 60, science kana wuxuu keenay 80. aan fiirino marka total ninkan wuxuu keenay 230, average na wuxuu keenay 76. 76 maxaa waay intaan fiirineynaa koodhka waa kan, koodhkana waxay ku laabaneynaa koodhkaan ku laabano kana iska gansanno. okay waa kan hadduu average ka weyn yahay 70 hadduu ka weyn ama la eg yahay 70 uu ka weyn yahay 76 soo 70 ka weyno waxa way ka weyn tahay. maadaama ay ka weyn tahay sidaas darteed waxaa noogu soo bandhigtaa grade C. sidaasaa grade C noogu soo bandhigaa ardayga grade C. okay waxaan samayn karnaa godadkan aadka u badan hal god bisaan kasoo reebeynaa bounty 76.6 bisaan ka dhigaynaa. waxaasna waa iska reebeynaa. maxaa sameeyaa marka saas la sameynayo waxaan tegaynaa average-ka meesha average-ka noo soo bandhigaysay waa kan. inta waxaan leenahay percentage-ka waxaan ka hormarinaynaa bis bounty dhibic hal god bis noo soo buuji. intaa fiirinaynaa maadada koowaad qofka wuxuu keenay 100, maadada labaad wuxuu keenay 80, maadada labaad wuxuu keenay 50. 76.7 grade C. grade C بس maxaa noogu imtixaanaanay hadda waa ka bedeleynaa insha Allah taala grade B aan raadinaynaa. 90 oo keenay maadada koowaad, maadada labaad wuxuu keenay 90, maadada saddexaad 80 oo keenay grade B waa kan. waxaan la soo bandhigay 88% u baasay, totalkiisa 265 oo keenay, gradekiisu waa grade B. marka ugu dambeeyso file baan ka dhigaynaa wuu dhacay aan rabnaa ardaygan. maadada Ingiriisku wuxuu keenay 30, maadada mathka wuxuu keenay 40, xisaabtana wuxuu keenay 20. file aal roo qofkana noo soo bandhig. okay total wuxuu keenay 90, average-kiisu wuxuu keenay 30%. waa file ardayga wuu dhacay. intaas ayaa maanta labada programmer ayaa maanta soo diyaarinay labada program. waxaan oo dhiman jabtarka waxaan ugu dhiman switch insha Allah taala casharkeena dambe ayuu noqon doonaa. hada wabillahi tawfiiq. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.